الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا الميل وجهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa in idin la wadaago qiso aad iyo aad u yaab badan oo ku saabsan Allah subhanahu wa ta'ala in la tala saarto. qisada dhageysa kadibna fiiri. waxaa jira laba nin oo indoole ah. waxay fariisan jireen boqorada wadada soo marta ayay fariisan jireen. mid wuxuu dhihi jiray Allahumma arzuqni min fadlik, ilaahayow fadligaaga wax igu sii, adiga wax sii. midna wuxuu dhihi jiray Allahumma arzuqni min fadl zawjati al-malik, boqorka xaaskiisa ilaahayow fadligeeda wax iga sii. boqorada marka boqorka xaaskiisa way maqli jirtay oo waxay sameyn jirtay ninka dhaho ilaahayow fadligaaga wax igu sii 2 diinaar u soo diri jirtay. ninka dhahane ilaahayow boqorada xaaskiisa fadligeeda wax igu siine waxay u soo diri jirtay hal digaag. digaaga waxay soo gelin jirtay 10 diinaar ay soo dhex gelin jirtay. ninkii markana laba waxa loo keena diinaar loo keena, kana waxa loo keena halkii digaaga loo keena. ninkii marka wuxuu sameeyay halkii digaag oo wuxuu ka gadaa ninkii kale oo 2 diinaar wuxuu dhigay inuu digaag ma rabeen $2 si waxa qaadatay digaagan qaado. hay ninkii doolii kale 2 diinaar oo siina digaagii qaadana. digaagiina uu cuna 10 diinaarne wuxuu ka soo baxsanaa digaag calooshiisa soo bixi jirtay. 10 maalmood markii socotay ayaa xaaski boqorka xaaskiisa waxay tiri warniyo ma dharatid miya. 10 maalmood ayaa waxaan ku siin jiray markaas uu maxaa isoo ku dhargaabo markaas ay maalin walba soo digaag kuma soo diri jireen. ha digaaga dhaxdiisa aw digaag waxay tiri waxaan ka geli jiray hibelan ka geli jiray. markaas waxay ku tiri digaaga dhaxdiisa waxaan ku soo gelin jiray 10 diinaar ku soo gelin jiray. way qosasho waxay tiri ninkaasay tiri Allah subhanahu wa ta'ala ayuu wax weydiistay. adiga waxay tiri annaga waxna weydiisatay ilaahay fadligiisa uu ka xaaraantimay. asigana Allah ayuu weydiistay ilaahayna fadligiisa wuxuu u soo qoray inuu 10 kaas qaato. marka dhageysa faman i'tamada ala an-nas qofki ibn aadam oo tala saarto dhal qofkaas waa ihaan waxa ku dhacay dulinima ku dhacaysa. waman i'tamada ala maalihi qal qofki markasta xoolo ku raadina xoolaynay ka yaraadaan laga yaaba. waman i'tamada ala nafsihi mal qofka duu naftiisa ku kalsoonaadana wuu daala. ومن اعتمد على الله سي علماء لهم قفكي الله سبحانه وتعالى تلا صارتو مذلو بايا حوليه سنة ما يراناي من اللمايو من الدالاي مركا الله سبحانه وتعالى أن تلا صارنو الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آيات إلهي يقول أسفع ودقيست ومن يتق الله يجعل له مخرجا لبكستو إلى وحوك وفروده إيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى أنت لسالنا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.